تاريخ الدلكا ما يهي ودني أن أقولين حلقة حرية ملقيه كراوة ودني بس ودني مقع واي عادي مقع عادي سيدا فرحيو سيدا فرح سيدا جامع أو كلامية ودني معنين سوحو يهي نك الدلكا إيا دادكا جعل تاريخ الدلكا يقانا ما يقانا مدحوين فرماجو حلقي صوماليا حرية اي قادتي ما يقانا حلقي اي كسو وريكتا مركا مانتا كدب هديلو ويدادو فرماجو ودني waxaa tiraada halkeeba ay ku qoran tahay meel wadanigu oo haba yaraatee oonan aqoonin taariikhda xorriyadda dalka soo dhawaada mar kale qodobada barnaamijka caawaan idinku hayo waxa kamid ah sirta ku saabsan xogta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya mucaaradkii lacag ay la yimideen abaanduulihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya odawaa Yuusuf Raagi waa la iibsaday taliyaha booliska ninkii odag ahaa Saadaq John waana la wareegay wasiirkii amniga dawladda Soomaaliya gorgortan dhaqaale ayaa lagu jiraa boorso lacaga ayaa la keenay Muqdisho ka xaabiye boorso lacaga Muqdisho taala soo sheekadu ma la dhigi jirin qaniya ka fujisa Soomaalida tiraada maqt qofku markuu ku qaniyo adigana waa la qaniina oo ka fuqaya maxay yeelay qaniya kama awood badna nabar ya naxdin waxay sameyn jireen waxay ahayd dhaqaale in dadka lagu iibsado hadda waxa ugu yar mucaaradka qofkii sirta dawladda federaalka keeno wuxuu qaadanayaa 15 milyan wuxuu qaadanayaa 20 milyan wuxuu qaadanayaa 30 milyan wuxuu qaadanayaa in ka badan waxa la diyaariyay dhaqaalihii ugu adkaa abid oo lagu dhabar jabiyo kooxda nabar ya naxdin caawa isbedelka xogaga mucaaradka dawladda farmaajo ka soo horjeeda isbedel doonka ayaa sir badan kaaga haya hoteelada Muqdishona mooshin ayaa yaala waan ka sheekayn doonaa balse arrin Axmed Madoobe Saciid Cabdullaahi Dani iyo qoorqoor iyo waare iyo qof kasto Soomaaliya quseeya ayaan ka bilaabi doonaa qof jooga garoonka diyaaradaha oo aniga xushmad iga mudan ayaa si cad warbixintan ii siiyay xushmad iyo qadarin oo xaggii ka mudan yahay ma ka shifaayo magaciisa ma sheegayo xigashadiisana ma laha sida darteed sidee wax u dhaceen 5 milyan ayaa lagu dhiibay cudurka COVID-19 dawlad walba cudurka COVID-19 dadkooda oo la daala dhacayo 5 milyan la siiyay dawladda farmaajo lacagtii 5 milyan loogu talagalay ilaa hadda lama siin ilaa COVID-19 ku feelso ahaa qayladaan dheer kadib dukumentiyo beena iyo dadka Muqdisho ku dhintay sida loo qorayo gaaladu waxay tiri waxaan bixinaynaa lacagta COVID-19 kowda bisha 8aad waa dawlado badan la sii doonaa lacagtaasi 5 milyan dawladda farmaajo marka waxa la yiri waxaad sugaysaan kowda bisha Agosto haddaad garoonka furtaan inta ka horeysana 5 milyan idima siinayno dhageysa dalkayga COVID-19 cudurkan dunida saameeyay dawladda farmaajo waad ogtiin qofkii dhintaba cudurka COVID-19 loo qorayay waad ogtiin COVID-19 ka lacag ay ku bixisaa lacag lagu bixiya oo inta badan wuxuu kamid yahay cudurkan halista badan oo aad ogtiin 5 milyan ayaa la siinayaa dawladda aan ka yar 60,000 oo ka yar markay 60,000 oo kiis markay kiisaskaadu ka yihiin 5 milyan aad qaadanay markay kiisaskaagu ay 60,000 ka badan yihiin waxa lagu siinayaa in ka badan 5 milyan dawladda farmaajo waxay been sheegtay iyo qofkii dhintay iyo qofka tiibisha u dhintay say u qoraysay ma dhama kiisaskeedu 1500 marka lacag 5 milyan ayaa loo balan qaaday garoonkii diyaaradaha iyo furitaankiisa 5 milyan isku soo aaday caawa waxaan si dhab u sheegayaa inaysan jirin garoon la furay ilaa lacagtaasi 5 milyan dawladda farmaajo u yimaado ilaa uu lacagtaasi ka helo waa diiday inuu garoonka diyaaradaha furo marka wasiir Omar iyo farmaajo iyo qayre ayaa waxay ku shireenayeen Fahad Yaasiin sidee la yeelayaa lagu yiri haddaan dhahnay dheen marka 2 bilood uu si xayirnaanaya garoonka waxa laga yaabaa inay mucaaradka nagu fahmaan oo ay qayliyaan waxaan sameynaynaa marka isbuucan ku daraynaa isbuucan hadda soo socda wixii ka dambeeya 25ka in la furo la doonayay markii loo dhow yahay 22ka ama 23ka markii la marayo dib loo sii durjinaya isbuuc maxaa yeelay hadii la yiraahdo 2 bilood waxa daadanaya oo la fahmaya qorshaha dawladda maxaa yeelay wax badan xayiran garoonkii diyaaradaha ay ka soo degi lahaayeen maamul goboleedyada ilaa bisha Agosto lama furayo garoonkii diyaaradaha oo Abdi Xaashi iyo wafdigiisa ay doonayeen inay ka dhoofaan si ay maamul goboleedyada caasimadahooda u tagaan oo ay arrimaha doorashada ay kala soo hadlaan garoonkii lama furayo balaaya garoonkii ka timid waana isbaara farsamaysan oo lacagaysan oo habaysan waana mid uu farmaajana isku difaacayo waana mid la doonayo in lagu marsiyo sheekada doorashada sababta koowaad 5 milyan ee COVID-19 dawladda farmaajo ilaa ay ka hesho garoonka lama furayo garoonka marka wuxuu cunaqabateen ku yahay is-aragii maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka marka madaxweynaha waxa la weydiiyay waxaad ogtiin diyaaradaha UN ka way shaqeeyaan xilliga COVID-19 uu saameeyo wadanka ama xayiraad xagga duulimaadka waxa lagu yiri farmaajo Abdi Xaashi haduu yiraahdo diyaaradaha UN kan u baahanahay maxaa sameynaa
ilan qofka mas'uulka ah waa dhoofi karaa waxa la diidayaa waxay tahay shacabkan in cudurkan uu faafo kaliya la diidaya UN-ka diyaaradahooda la isticmaalaa xataa farmaajuhu markuu aadayay magaalada Djibouti diyaaradaas u qaatay markii waxa la yiri Cabdi Haashim yuusan xaq u lahayn war waa reer baadiyaha fahamsiin u dhahay ma fahamsaneen mucaaradka nagu fahamsiinina waxay sugayaan mucaaradka in airport la furo ma fahansana marka Cabdi Haashi iyo qolooyinka kale in garoonka diyaaradaha loo isticmaali karo diyaaradaha UN-ka marka farmaajo marka la weydiiyo wuxuu yiri ma fahamsaneen ha fahamsiinina marka qofka jooga airport wuxuu codsanayaa in la wada fahmo qorshaha garoonka xayiraada waa midda 5 milyan lagu doonayo doorashadana in la farsameeyo lagu doonayo sidee looga badbaadi karaa xal ma jiro boqolkiiba boqol maxaa yeelay COVID-19 oo aan la helin 5 milyan lama furi karo garoonka diyaaradaha haddii 5 milyan la helo ayaa kadib waxa suurtagelaya garoonka in la furo si uu Axmed Madoobe uga soo dago Saciid Cabdullaahi Dani ay uga soo dagaan ama maamul goboleedyada la wada aado xalane sidoo kalena waxa fursad u noqonaya in qof waliba uu ka soo qayb gal galo sida senatarada maqan xildhibaanada maqan ay dalka ku soo noqon karaan ninkan markuu wuxuu rabaa hal dhagax inuu laba shimbir ku dilo hal dhagax uu rabaa inuu laba shimbir ku dilo doorashadiisana inuu uga faa'iideysto doonaya ilaa iyo bisha Agosto haddaan laga gaarin wuxuu doonayaa ilaa bisha Agosto inuu garoonka u xirnaado garoonka markuu ilaa bisha Agosto xirnaadana waxa uryaamaya hawshii isbedel doonka ee la doonaya in doorashada looga guuleysto maxaa yeelay garoonka xiran garoonka duu xiran yahay wax suurtagelaya ma laha diyaaradda Kismaayo ka soo duulaysa Muqdisho ma iman karto tan Garowe Muqdisho ma iman karto marka wuxuu doonayaa inuu laba dhagax inuu hal shimbir laba dhagax ku dilo wuxuu doonayaa inuu 5 milyan ee COVID-19 kana uu helo cuuryaamiyo doorashada dalka waxaan rabaa marka arrintan fariintan waxaan gaarsiiyay dhammaan siyaasiyiinta waan u diray waana fahamsiyo waxaan iri siday wax u socdaan isticmaala diyaaradaha UN-ka kana gaarsiiyay Cabdi Haashi arrintaas waan u soo noqon doonaa balse sheekadan ah in Cabdi Haashi lagu ciqaabo ama loo dhigto isbaara farsamaysan oo la sharciyeeyay oo lacagtaasna lagu raadinayo waxay ku tusinaysaa inuu madaxweynuhu doonayo inuu shimbirka koowaadna ku dilo in aan la doorashadaasi aynan imaan xilligii loogu talagalay maxaa yeelay August haddii la yiraahdo waxa ka dhinaanaya waqti aad u yar waana qasab in lagu daro muddo farmaajo markuu waayay 1 sano iyo 2 sano wuxuu yiri ilaa ugu yaraan bisha October 2021 waa inaan Muqdisho joogaa maxaan ku joogi karaa alxamdulillah COVID-19 dartiis alxamdulillah farmaajo dhahay COVID-19 dartiis aan ku joogayaa maxaa yeelay diyaaradihii baa xayiran garoonka diyaaradaha meel aan ahayna Soomaaliya nabad maaha maanta afgooya diyaaradaad ku aaday kuma aadi kartid gaadiidka dhulka maanta Jubbaland gaadiid dhul ma isticmaali kartid maanta markaad rabto galmudug iska daayay Hirshabelle diyaarad mooyaane dhulka kuma tagi kartid waana culays inteeda leeg dadka Soomaaliyeedna waa inay fahmaan Soomaalida kalena inay ogaato qorshaha halka dhagax uu labada shimbir ku doonayo inuu ku dilo waa kee macalinka shakshiga macalinka sidan u hadla wuxuu doonayaa labadaas shimbir inuu Cabdi Haashina ku cunno qabateeyo shirka xisbiyada mucaaradka ay Garowe aadi lahaayeen la waayo garoon ay ka dhoofaan maxaa yeelay waxa la rabay isla bishan gudaheeda in maamul goboleedyada iyo dawladdu ay kulmaan dhinaca kalena xisbiyada siyaasadda iyo maamul goboleedyada ay kulmaan si ay qorshahan mucaaradka uga faa'iideystaan marka wuxuu yiri yaanan Garowe la aadin garoonka iixir waxa tirada COVID-19 baa jira durji maalin kasta isbuuc ku dar maalin walba waxaad ka dhigtaa next week ugu dambayn next week sidoo u socdo wuxuu gaarayaa September October iyo September haddii la gaaro waa isku dhamaatay waqtigii dib u dhacay 27 bisha Juunna islaantu inay timaado waxaan ula jeedaa Xaliimo Yaray iyadana gooni ayay arrintooda u tuman tahay mucaaradku marka ma haystaan awood ay arrintan kaga hortagi karaan horta boqolkiiba 80 saacadaha ugu dambeeya ayay baraarugaan mucaaradkan hadda aad arkaysaan inta badan waxay soo naaxaan waqtiyada gabagabada waxa laga yaabaa in ay garoonka arrintiisa ay noqon doonto mid wax ku oola maxaa yeelay farmaajo garoonkaas uu isticmaalaa dukaan oo isaga leeyahay kale adeegsado nidaam sharci diyaaraddu doono oo ciidanana garoonku ka soo dejiya mana ogolo wax isaga lid ku ah in garoonkaasi ay ka dhoofaan shalay isbaaro ayuu u dhiganayay maanta wuxuu doonayaa isbaaro sharciyeysan dadku inay fahmaanna waa muhiim dhanka kale wasiir ku-xigeenka ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo ku beela Cabdi Haashi oo ka soo jeeda isla beesha dir Mahdi Guuleed ayaa loo dhiibay boorso lacag waxa la yiri intuu garoonka noo xiran yahay Cabdi Haashi aan mooshin ku tuurno mooshin looga soo horjeedo ama mooshin ka dhana Cabdi Haashi ayaa hoteelada Muqdisho caawa lacag lagu qaybinaya
xilligan waqtigan aan kula hadlayo hoteelada muqdisho waxa buux dhaafiyay sanataro lagu iibsanayo milyan 2 milyan 2 milyan 500 3 milyan sanatarkii bixiya codka sanatarka waxa lagu iibsanaya 1 milyan 2 milyan 500 3 milyan cabdi xaashi marka wuxuu gali doonaa waana mid aan rabo dadka inay aad ula sii ogaadaan haddii garoonka uu sii xirnaado cabdi xaashi mooshinay ku tuurayaan mooshinay intay cabdi xaashi ku tuuraan ayay keensanayaan qofka ay doonayaan fiiri meesha waxa loo adeegsanayo waa dhaqaalaha gobolka banaadir si marka cabdi xaashina mooshinkaas loogu tuuro nimanka mucaaradkana baalasha looga rifo oo laga dhigo niman aan tabar lahayn cabdi xaashi waa ninka kaliya ay haystaan maadaama uu qiyaanay ra'iisul wasaare Khayre oo muddo inuusan ahayn biina ahayn oo ra'iisul wasaaruhu ma toosna waa nin iska xoga macalinka jalaafada la yiraahdaa meel loo raaca malaha ballan iyo waliba wada loo raaca malaha waa nin qiyaano badan waa sida nin u dhaqmay xaasko kale Khayre marka anagu waqtigan waqti kale isaga ma luminayno Khayre waa yaxaas afka haduu kula gafo dabada kulama gafayo waa nin nibiri ah oo aan la ogaan karin wuxuu yahay marka meel idhig cabdi xaashi mooshinkaasi mahdi guuleed ayaa wada hoteelada muqdisho ayaa la geeyay lacagahaasna waxa la doonayaa in sanatarada lagu iibsado macalinka shakhsiga marka dhowr arrin ayuu doonayaa inuu dalka ku sii joogo waa kee waa madaxweynaha aan af Soomaaliga aqoonin waa madaxweynaha Soomaaliya ee aan aqoonin Soomaaliya xilligii xorriyadda qaadatay madaxweyne aanan aqoonin sanadka lagu jirana wuxuu doonayaa inuu talada dalka ku sii haysto barnaamij la yiraahdo qowda maqashay waxna ha u qaban waa waxyaabaha yaab kale oo dadka Soomaaliyeed aan doonayo inay aad u fahmaan haddii ay dhacdo marka in garoonka la daawado oo aan waxba laga qaban hadday dhacdo in ay xisbiyada iyo dhammaan maamul goboleedyadu ay fahmi waayaan shirqoolka isbaarada taalla garoonka diyaaradaha haddaan la ogaan sirta ku salaysan in garoonkaasi aan laga gudbi karayn oo haddaan garoonka la furina ay waxba kala hagaagayn ogaada waxay la mid tahay mas dhuunta laga qabtay maska maaragtay maska markaad dhuunta ka qabato awood ma laha xitaa kuma cuni karo isma dhaqaaji karo dawladdu wuxuu ka dhigay farmaajo dhuuntuu qabtay garoonka ayuu isbaaradaas u taala wuxuuna doonayaa ilaa bisha Agosto inta laga siinayo 5 milyan garoonka waa noo xirnaana isbaaradaasana taala marka waxaan rajaynayaa in dadka Soomaaliyeedna ay fahmi doonaan haddii Allah idmo qaniya ka fujisan maqli jiray xogagii mucaaradka isbedel doonka farmaajo ka soo horjeeday sanduuq lacageed aan muqdisho laga xiray lacagtaas ma cirkay ka soo dhacday ma dhulkay ka timid adigu kala shay meel laga keeno lacagtaas lama oga isla markiiba shabaq ay dhigteen xogaga mucaaradka farmaajo ka soo horjeeda waxaana la diyaariyay in waxay ku dhaqmayeen lagu la dhaqmo farmaajo dawladdiisu waa kontrabandistayaal banaanka yaala weeyaan waa dad laaluushku uu ka marayo 100% marka waxa la yiri qaniya ka fujisa maadaama ay yihiin dadka laaluushka bixiya dadka ugu musuqmaasuqa badan dawladii ugu musuqmaasuqa badneedna ay tahay mar walibana ay lacag ku dhaqmaan waxa la dul dhigay ciidanka dawladda lacag aad u fara badan odawaa Yuusuf Raaga la wacay waxa lagu yiri inuu sharafi kuma taalo gabar mursada oo Khayre oo adeer u yahay ku aflagaadeysa maalin walba nin raga adigoo ah ayay gabari kugu cayrsataa xafiiska Khayre marka waxa lagu yiri inuu lacag sheego odawaa Yuusuf Raaga qiimo sheegtay Saadaq John isagana qiimo sheegtay taliska nabad sugidda markii Saadaq laga reebo Faad Yaasiin intooda badan waxay soo gudbiyeen liisaska ciidanka uu farmaajo habeen walba soo dejiyo dhammaan mucaaradka gacanta loo geliyay taatikada uu farmaajo doonayo inuu wadankan ku sii maamulo sirtii inta badan waa laga wareegay caawa si buuxda waxaan u sheegayaa oo aan idinka hubaa oo aan soo baaray meel wanaagsan maraysa hadduu farmaajo sharciga qaato falilah alxamdu dib ma laha waa wanaag iyo horumar cidii dan ma jirto laakiin taatikadii uu shalay isticmaalayay mid lamida ayaa lala isticmaalay waxaana laga dhigay oo kaliya oo lagu la dhaqmay in ciidanka xoogga dalka ee farmaajo uu isku halaynayo gabi ahaantood la iibsado askariga farmaajo waardiyeeyo $130 u qaataa waxa la dul dhigay adduun lacageed oo kor u dhaafaya inta uu mushaar isagu bixiyo lacagta hadii aan sheego koobi kale ku sameynayaan laakiin mushaarku bixiyo mushaar ka badan ayaa la dul dhigay odawaa Yuusuf Raaga waa la gatay koofiyo guduudda madaxtooyada waardiyeysa 80% mucaaradku gacantay ku dhigeen dhabar jibin xog leh ayaa ku soo socota caawa meel ku qorta goormeel la dhabar jibinaya hadda ma hadda cid taabanaysa haba yaraatee malaha markuu damco inuu doorashada qalqal geliyo farmaajo oo xiran hadaad arki weysaan dib dambe barnaamijkayga ha u daawan dhegeysa hadalkayga marka uu damco inuu dhaqdhaqaaq sameeyo waxaad arki doontaan farmaajo xiran
midowga Afrika iyo kullina warqad baa la siinaya waxa la leeyahay waa nin u xayiran dawlad magangeliyo siyaasadeed bixisa ayaan ku wareejinaynaa odagoo jeebadaysan aad arkaysan maxaa dhacay waa goorme markuu yiraahdo doorasho ma dhigayo inta ka horeysa cid taabanaysa malaha waxa lagu sameeyay marka militariga iyo booliskiina mas'uuliyadii inta badan waa laga wareegay lacag ayaana la duldhigay idinka qarimaayo maxay la farmaajo dawladiisu lacag ay dadka ku jibisaa ayagana lacag lagu jibiyay marka waxaan rabaa inaan tan aad u bablaariyo si ay dadku u fahmaan ma aha mid dawlad lagu duminayo dawladnimo waa sharaftuna waa dawladnimo laakiin ninkii dawladnimo diida ayatinkiisu waad iska dareemi kartaan aadaan idinku farsidi doonaa balse farmaajo markuu ka yimid Djibouti ayaa nin farshaxaniista oo la yiraahdo Sujaac artist ayaa iga codsaday inaan arrintan baaritaan ku sameeyo madaxweynihii waa laga shakiyay sabab kadib markii ay marwasayna maqashay dib u daawatay muuqaal madaxweyne farmaajo oo qaldaya hooyadeed marwasayna xaaskiisu markay ogaatay inuu sir farmaajo kala aqoonin 60 sano iyo 30 sano kadib markii la ogaaday af Soomaaliga ku hadalkiisa dhaawacu inuu yahay qayb kamid ah waxyaabaha maskaxda inta badan dooriya marwadu waxay go'aansatay inay geyso isbitaal Muqdisho ku yaala nin dhakhtar oo caana oo Muqdisho degan loo yeeray farmaajo madaxtooyadu tagay goobta waxa fadhiya nin gudoomiyaha aqalka baarlamaanka federaalka Soomaaliya marwada uu qabo xaaska madaxweynaha ayaan ula jeedaaye marwasayna farmaajo iyo dhakhtarkii qofka marka la rabo in caafimaadkiisa la weydiiyo laba su'aalood la weydiiyaa su'aasha koowaad faraha la tusaa waxa la yiraahdaa meeqa waaye hadduu dhaho laba far waaye caafimaadkiisu waa fiican yahay laakiin hadduu laba far saddex far waaye dhaho beerta waaye dhakhtarkii su'aal yaab loo weydiiyey su'aashii ugu qosolka badneed ahayd hadda wallahi inaysan riwaayad ahayn waxaan idinkaga sheekeynayo kadib marwadu markay aragtay in xalka caafimaadka madaxweynaha markay aragtay macalinka shigshiga xataa inuusan hooyadeed magaceeda aqoonin markay aragtay in uu gafay magaca hooyadii madaxweynaha farmaajo hooyadii weeye magaceedu gafay maryana la yiraahdaa waa hooyo xushmad inaga mudan laakiin inuu maryan maxamed ugu yeero in hooyadeed uu abshir ugu yeero waa waxyaabaha kalifaya in qofka laga shakiyo ma hadda ka waran hooyaday abshir ugu yeero oo haddana hooyaday maxamed ugu yeero hadda markaa waxa qasaba in lagu yeero dhakhtar qaasa oo baaritaan igu sameeyo madaxweynihii dalka sababta loo baarin waxa kow ka ahayd kala qubqubsan yihiin markuu rabo inuu dhaho saas uu leeyahay dadka kala qubqubsan inuu dhaho markuu rabo saano kale ugu dhawaaqa kala qubsan yihiin markii la weydiiyo Soomaaliya goorma xorriyad qaadato wuxuu ku leeyahay 1991 markii la weydiiyo saddexda magaceed wuxuu ku leeyahay saddexda magaceed waxa la yiraahdaa abshir hooyada magaceed markii la yiraahdo maxamed uu dhahaa marka waxa keenay oo cad oo dadku ay ka tacajibeen dhakhtarka lagu yeero waa noocaas ka been sheegi maayo waa madaxweynihii qaranka caafimaadkana ilaah baa bixiya ma aha mid la iibsan karayo caafimaadkuna waa muhiim qofkana in dhakhtar lagu yeero aflagaada ma aha qofka bili aadanka dhakhtar inuu samaysto aflagaada ma aha haddaad adiga cay u taqaano madaxweynaha in la weydiiyo waa su'aal ilaah baan kugu dhaariye qofka la yiri kala qubqubshan Soomaalida kala qubquban markii la yiraahdo duusaan leeyahay kala qabsan yihiin haddii saddexdii la weydiiyo magaceedana uu leeyahay magac runtii yaab leh fiir ilaah baan ku dhaariyay hadduu saddexda magaceeda gafayo oo ay dhacayso inuu saddexda magaceeda gafo oo kala qabqabshay markii la yiraahdo ay ka daran tahay bal ilaah ku dhaariyay arag madaxweyne dadka qaar ay ugu dhagan waxaan ka rabaa hal su'aal inaan ku weydiiyo miyiga jawaabaysa madaxweyne iyo saddexda madaxweyne waxa tiraahdaa saddexday dhageystaya saddexday uu leeyahay madaxweynaha فيريا صدقني إلى صد مدحوين واحد ترى هذا صدقني هي صدقتي مدحوين الصدقني به هي صدقتي به هي صدقتي كلا قبقبان ده مدحوين كلا قبسيين واي صدقنا أنا واقفتي كلا قبضين واقفتي صدقنا حال مقع مين لا مثلا دور مقع أبشروا آدم بشارة آدم نين مركب أبشروا بشارة وجو يريه iyo abshiro bishaaro ugu yeeraya waa qasab in dhakhtar caafimaad loogu yeero tan kale oo kaliftay in dhakhtar loogu yeero waxa kow ka ah madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo waxay dantu kaliftay markii la yiri madaxweyne Soomaaliya goormay xorriyad qaadatay xorriyad markaan qaadanayna waxa laga joogaa 30 sano soo socda 2020 sanadkan ku jiro kadib intaas waxa la yiri madaxweyne waa qasab in markaa dhakhtarka caafimaadka loogu yeeray nin dhakhtar oo caana oo Muqdisho degan oo la yiraahdo Dr. Xabeeb loo wacay waa macallin waa doctor wanaagsan anigu doctorkan waxaan bartay 1994 xilli uu isbitaal ku lahaa xaafad la yiraahdo suuq xoolaha oo dadku inta badan wada yaqaanaan Dr. Xabeeb waa nin ku takhasusay dhinaca dhimirka
دكتورك اسبيتال وين ام مقدسو uga furan oo dhimirka xaqiisa habeenada kamida ayaan doctorkan isbitaalkiisa waraysi u aadnay Soomaaliya waa iska taqaana Muqdisho mararka qaarkood xabada iska bilaabanaysa waagaasna amnigu ma wanaagsanayn doctorka aan u rabnay inaan arinta dhimirka wax ka weydiino ayaa maalmaha kamida waxaan ugu dhacay anagoo wariyaal fara badan waxaan ku go'doonay isbitaalkii uu doctor Xabeeb lahaa isbitaalkii dad jinni qaba bisa degan marka odagii waan weydiin waxaan ku dhahnay fiiriya dhimirku inuu yahay muhiim dhimirka qofka la'aan inuu halisteeda leeyahay doctor Xabeeb waxaan ku dhahnay baaburtu waa joogsatay xabada socotee meel mana seexi kartaa markaasuu inuu hotelku waa fog yahay xabadana jirteen isbitaalka dhinaca ka seexinaya doctor Xabeeb waxa u furan marka isbitaal weyn oo xagga dhimirka wuxuu inuu dadka ku waashay xabada maan idin la seexiyaa ma waxaan idin la seexiyaa dadka boofiska ku waashay waxaan idin sixiyaa dadka siyaasadda ku waashay waxaan idin sixiyaa dadka ku waashay darawalnimada macnaha kirshbooynimada oo inta wareeray kirshbooyga ah kan kula sixiyaa nin iska dhib badan aan ahaa markii hore oo inta badanna waa su'aalo badnaa aniga waxaan ku yiri waxaad ila sixisaa dadka oo boofiska ku waashay afar nin oo boofis ku waadatay ayaa isku qol naqana habeenkii waagaas marka la tahriibayo Abu Dhabi la mari jiray Dubai kadib Dubai laga tagi jiray Yurub la aadin jiray كوجنا قبا مركا أكتيدا دين عيق جيفا وصوفر يساوي حوليه وشرح يا سيدنا إنك مقلص كوكرة مقلص عمل وشرح يا دتك دوفيان ولا جيلا انتو صوفر يستوي حوري وكل دوفينيا واحد بحنا يسا انت صول عجا ايربورك دبي مركا تكتو جرائد اما جورنال ساس وقبصو جورنال كاغا حفدي إذا جيسو وليها مركا مid kale marka mucjiso aha oo aan iga fogeyn meesha aniga habeenkaas aan joogay waxa uu yiri ninkan deyn ku waashay marka inuu deyn ku lahaa deyntii ninkii qorayo watay qoraya lagu qabto xoogaa deyntiya marka maskaxda ugu dambeysay wuxuu leeyahay walaalayaal ifasax deynteeda aan doonte walaalayaal qofkaas aan deyn ku leeyahay ifasax markaas wuxuu yiri habeenkii ugu yaabka badnaa weeyaan dadka dhibirka la oo doctor Xabeeb isbitaalkiisu ku arkaa waxay ahayd nina marka subax walba waxa loo qoraa bili aadan dhar xirtaa tahay haddaan loo qorin eber waayo wuxuu u gafaa sida madaxweynuhu markuu tabeelaha la keenay magaciisa ma gafin bili aadan dhar xirtaa tahay loo qoraa subaxi marka meeshaasuu ka akhristaa kadib uu dhar xiranaa marka waa doctor mucjisa isbitaalkiisa waagu markuu bariyaa waxaan ku yiri ninka beentiisu waay ma dhici kartaan ku yiri in qof loo qoro bili aadan dhar xirta waayo wuxuu yiri caawa ka dhaafaynaa sabuurada barito markuu waagu bariyo bal arag habeenkii oo dhan ma hurdin saa isku waardeynay maxaa yeelay mid shiisho ku waashay mid dharbaxsho ku waashay mid libiso ku waashay mid wuxuu ku waashay hadba nooc marka waa riwaayad yaab leh san habeenku u daawanayay ma hurdin waagu markuu bariyay ninkii dharka lagu qasbayaan arka marka war maxaa dhacay war aniga bili aadan mihi u taageen war adiga bili aadan aad tahay war ilaahay ma taqaan waa dhaaraa waliba quraan uu yaqaana quraanku akhrina wuxuu leeyahay bili aadan ma tiid bili aadan mihi wallahi bili aadan aad tahay maya wallahi bili aadan mihi maxaa tahay ana weydiin marka farasan ah ku leeyahay bili aadan mihi farasan ah marka walaalow aan cawskaas ka cunay dhaf maalintii oo dhan qasaba dharka lagu galiyay isbitaalkaas marka madaxweynaha loo waday ninkan artista sujac artist leeyada ayaa ka sameeyay sawir aad u qurux badan sawirkaas waad arki kartaan wuxuu yiri marka doctor Xabeeb inta la gaarin marwada madaxweynaha hadashay waxay tiri walaalow laba sano waxba idin kama dhibaysay ninkan si caafimaad loo helo gudoomiyaha baarlamaanka la hadlay waa marwasayna baa waxay leedahay walaalow laba sano waxba kama dhibayseen waxba idin kama dhibayseen ninkayga way ninkan si aan caafimaad ugu helo laba sano daawo u ah sharoobo kala hasiinine laba sano siiya محمد مرسل قدومياه برلمانك سو بود wuxuu yiri dumashi sidan ku arki jirto yiri دكتور حبيب yiri aamusa qofka in aan su'aalo ayaan rabaa aamusu دكتور حبيب waa nin mucjisa marka wuxuu weydiiyay su'aal ah madaxweyne Soomaaliya goormay xorriyad qaadatay Soomaaliya goormay xorriyad qaadatay madaxweyne Farmaajo muxuu ku jawaabay xorriyadda markaan qaadanayna waxa laga joogaa 30 sano soo socda 2020 sanadkan ku jiro دكتور حبيب وحلو جوابي الصومالي وحي حرية قادة صدن سنة كهر وحين صدق السنة نور لما يستر ميسا لما كون يلا بعتن دكتور كوحو قري نكان عافمات كيس مددر أي أباهان تحين فرماجو جيبو تشيكين جرين حق عافماتك أيو كجراح اللي كان هذا كان مساحة مصور رواية مركا دب أيان أديك مركات كوكب سريع مدحوينا أن تشيكين عافمات لمرسين ولو دي بكرسي مشيك دون كون ننسور هذه ninka markuu xilka madaxweynenimo ku guuleysto waa la kaxeeyaa marka la kaxeeyo kadib waxa la sameeyaa isbitaalka la geeyaa chicken caafimaad lagu sameeyaa aan kugu celiyo madaxweyne Shariif Sheekh Axmed chicken caafimaad lagu sameeyay madaxweynihii ka horeeyay
الله نحرسته مرحوم عبد الله يوسف جيكن عافماد ومري مركي جيبوتي uu ku guuleystay doorashadii ka dhacday عبد القاسم جيكن مري ninkan markii jeekinka laga ilaabay waa la iskaga boobkaas farmaaji geeya orada lagu galay ninkii orodka maxaan ka faa'iidnay kala qobqob he kala qobsan yihiin iyo waxaan ka faa'iidnay in markaan dhaho madaxweyne sadaqdayna iyo waxaan ka faa'iidnay in aynu xilliga sanadka aanu xorriyadda qaadanay oo laga joogo 60 sano inuu yiraahdo 60 lagama joogee 30 laga joogaa 30 sano xorriyadda markaan qaadanayna waxa laga joogaa 30 sano على كل حال مدحونا تلada haya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa rabaa markana inaan u guda galo goordho waxaan u guda gali doonaa qaybihii ka arsanaa barnaamijka oo aad u muhiima waxaan rabaa marka inaan ogaado maadada ugu muhiimsan oo aan doonayo dadka Soomaaliyeed in ay aad u fahmaan madaxweyne farmaajo gabar wasiirada ayaa qodbaysay waxay ka hadashay asxaabihii taariikhda diinta islaamka madaxweyne farmaajo ku xigo wuxuu yiri wasiiradaas waa maxsan tahay aniga diinta ma aqaan حاوتاكن أقانا ولي أنا قد دين تم أقان حاوتاكن أقانا وعرفا مركز تن أقول تلاقي أنا قد دين تم أقانا حاوتاكن أقانا معنى هذا محون قرية لابا إسكو درا مركز شارب إيو حاوتاكن أقانا دين تم أقانا شاربكو دينيا ما بنانا قف الإسلام كا قركو ودي سكرا لكن شارب كمان شارب واحد أوجي سهلك عن صوت إن ذو فانتنا مهمة مدحويني مرودي كهر رئيس وزير هيدو حكى هذا الشيء تاريخ دين الإسلام كا تاريخ أصحابها إيه كشكيسي هذا كحجي مع أن تسمحات تري مدحويني مركا حقيقة الله فيريو هذا الكيك آد يفهم آد أفهمه وعندنا يا إن تفهمتان مركا الله فيريو حقيقة بدحونو رنتو شيء أنا قفك رنتو شيء آد أنا رجع الله حي لأنه بين شيء معها أنا قد دين ما أقان عيب معها دين ما أقان لب ما له أيه مركا رنتو الله شيء مركا الله فيريو حقيقة هي هي gabadhan waxay ka soo hadashay waqtiga asxaabta waa diiniyan fiiriya madaxweyne dawlad islaam ma hogaami kara aan aqoon diinta islaamka madaxweyne aan diinta islaamka aqoon dal islaam ma hogaami kara madaxweyne taariikhda asxaabta aan aqoon dal islaam ma hogaami kara ilaahay baan idinku dhaariyay ka been sheegi maayo afkiisa wuxuu ku sheegay ayaan ummadda Soomaaliyeed la wadaagaya ma doonayo inaan ummadda been u sheego ma doonayo inaan ka been sheego madaxweyne dawlad islaam oo boqolkiiba boqol ma hogaami kara sidan u hadlaya dhageysta ilaa waqtiga asxaabta haye aniga aqoonta فيريا نول بأغنتي سكال دولة وصح دين ما أقان عيب ما لكن مدحوينا من نقول كرت نينا دين تأقون مدحوينا من نقول كرت بل فيريا أنا جوا حن كب الله يا وليه حد تاريخ الإسلام ككب الله مايو دتك الصومالية دين تأم الشيء وعن كب الله يا ليش تمرك أرجع دمبئ أنت أنا الشدين هل كوديجا حزب جيم مدحوينا فرماج ما تقانا هل كوديجا ما يسوق قري كتر هل كوديجي حزب جيم مدحوينا فيريا ما يسوق قري كتان هل كوديجي حزبي مدحوينها أو أدو جدين أو دربية الوسط الجزائري أنا كل شيء هذا حسوسا وحوها دنتا دلك يا دتك دين تبكوجت دب وغفير جوجلك صور كواحد إكتا حزبي مدحوينها وحلا يرالا هل كوديجي حزبي مدحوينها ودنتا دلك يا دتك دين تكون مجت إذا كو هم فاهميسان إن تفهمتان وانجعلها كل لابتا مدحوينها حزبي سهل كوديجي محوها هذا قفل بجوجل كاكو قرا دنت دلك كو قرا فرماج حزبي سو waxa la yiraahdaa danta dalka iyo dadka diinta ma ku jirin sida awgeed marka inaysan diinta ku jirin ogaada waa mid aan u baahanahay dadku inay aad u ogaadaan haye madaxweyneeyada maystir maxad tiri gabadhu xadiisay ka gabadhu waxay ka hadashay asxaabihi laakiin anigu diinta ma aqaano he marka la fiiriyo xaqiiqada waxay ka soo hadashay ilaa waqtigii asxaab waa gartay madaxweyne laakiin aniga waxaa ka bilaabaya nin walba aqoontiisu ka hadlaayo xaawaqaadka iigu celi nin walba aqoontiisu ka hadlaa mar labaad iigu celi ma aqaano xadiis ma aqaano taariikh islaam anigu xaawataa kan aqaana iigu celi halkaa madaxweynuhu san aqoon kale lahayn markaati asagaa ku kacay asagaa afkiisa ku sheegay soo ma
نول بأقونتي سو كهلا ما يقان أقونتي سما مدحوينه ونسان دينتا أقونين مرقاتي مكتي يقول علي مدحوينه نول بأقونتي سو كهلا حاوقاتكم إلا بي نول بأقونتي سو كهلا حاوقاتكم يصدحي إن هذا أقونين حديث iyo taariikh asxaab inaadan aqoonin oo aadan waxba ka bilownayn sheekada diinta iigu celi nin walba aqoontiisa ka hadla xaawataako nin walba aqoontiisa ka hadlay xaawataako ii saddexee nin walba aqoontiisa ka hadlay xaawataako mar kale ku celi madaxweyne nin walba aqoontiisa ka hadlay xaawataako dad difaacaya ninkaas ayaa mudane sheekh axmed madoobe wax ka sheegay ninkaa dad difaacaya ayaa axmed madoobe wax ka sheegaya waa sheekh axmed madoobe oo nin culimo ah oo xaafidul quraana ayay wax ka sheegayaan dadka ninkaa watoo diinta ma aqaano ee waxaan aqaanaa xaawataa ka dhahaya ayaa waxay weerarayaan aqoon-yahan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo jaamici ah oo weliba takhasuskiisu oo dhinaca diinta u badan yahay markaasay leeyihiin madane saas waaye nin difaacaya ninkaa oo aanan aqoonin xawir madaxweyne dee waan ilooba madaxweyne qof walba aqoontiisu ka hadlaa hee nin walba aqoontiisa ka hadlay xaawataako farmaajo xaawataaka keliya u yaqaanaa aqoon kale uu leeyahay haba yaraatee ma laha ninkaa difaacaya shariif wax ka sheegaya gabar difaacaysa ninkaas ayaa waxay wax ka sheegaysaa professor aqoon-yahan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ninkaa difaacaya wuxuu wax ka sheegayaa sheekh axmed madoobe ninkaa difaacaya ayaa wax ka sheegaya aqoon-yahan muuse biixi cabdi ninkaa difaacaya ayaa salaad cali jalla wax ka sheegay wallaahi salaad xaafidul quraan waaye markii loo fiiriyo eragan wallahi salaada dhaama salaad cali jalla dhaama marka xaqiiq laga hadlo maxaa yeelay salaad waa yaqaana xawataaka kaliya ma yaqaano xawataaka kaliya ma yaqaano wax badan ayaa xifdina marka waay ay dadka u ammaanaan nooca barnaamij ah anigu qof walba aqoontiisa ka hadlaa madaxweyne igu cali maxaa tiri qof walba aqoontiisa hee nin walba aqoontiisa ka hadlay xaawataako waayahay madaxweyne dadka kala qobqoban dheh kala qobsan yihiin dadka kala qobqobsan dheh kala qobsan yihiin dadka kala qobqobsan kala qobsan yihiin madaxweyne kala qobsan yihiin dheh kala qobsan yihiin madaxweynihii dalka waa kaas madaxweyne muule kuma maqal kala qobsan yihiin mar kale kala qobsan yihiin ninkaa nin uu siyaasi u yahay ayaa siciid cabdilaahi dani wax ka sheegaya ninuu ninkaa siyaasi u yahay ayaa wax ka sheegaya mudane sheekh axmed madoobe ninuu ninkaa siyaasi u yahay ayaa wax ka sheegaya mudane cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ninkaa siyaasi u yahay wuxuu wax ka sheegayaa mar walbana uu ku celceliyaa siyaasaddu ma aha saas waaye soomaalidu waa ka ninbaa ninkaa siyaasadda ugu jira markaasay waxay rabaan inay wax ka sheegaan marka sababta kalifaysa marka maxay tahay aqoon-yahan cabdiraxmaan cabdishakuur iyo ninkaa ma isku daraja kala qobsan yihiin aqoon-yahan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame iyo ninaanan aqoonin xilliga soomaaliya xorriyad qaadatay ma isku daraja xorriyadda markaan qaadanayna waxaa laga joogaa 30 sano soo socda 2020 sanadkaan ku jirno madaxweyne aanan aqoonin 2020 inaan ku jirno iyo inay noo dhiman tahay ma oga madaxweyne aanan ogeyn sanadkan inuu 2020 yahay ayaa waxa lala dhinac dhigaya xafidullah cabdiraxmaan cabdishakuur warsame madaxweyne aanan aqoonin in aan ku jirno 2020 iyo inaan ku jirno 2019 ee aan sanadka aqoon ayaa waxa lala dhinac dhigaya xafidullah shariif sheekh axmed oo ah nin culamo ah madaxweyne yiri ii kaadi madaxweyne aqoontaydu xaawataaka ma dhaafsisanay dheh madaxweyne waxaan ka rabaa aqoontaydu xaawataakay ku egtaa dheh xaawataaka maya sadoxday maaha madaxweyne waxaan ka rabaa xaawataaka ma dhaafsiisano yes xaawataaka ma dhaafsiisano aqoontaydu xaawataakay ku egtaa dheh farmaajo ma yaqaano waxaanan xaawataaka ahayn wuxuu la tirsanayaa jaamici cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ninaanan aqoonin qof aanan xaawataaka ahayn wuxuu la tirsanayaa fadiilatu sheekh axmed madoobe ninaanan aqoonin xaawataaka qof aanan ahayn fadiilatu sheekh waa ilmo sheekh shariif sheekh axmed oo aad ogtihiin xafidullah ayuu la tirsanayaa waayo marka ay dadkani u ammaanaan ninaanan aqoonin dadka kala qobqoban markii lagu dhawaaqayo aan garanayn kala qobsan yihiin iyo sidoo kale nin aanan aqoonin magaca sodohdii waa hooyada labaad waa hooyada dhasha xaaskaaga iyo sodogtay abshiro aadan bishaare aadan
haddaba mooshin ka dhana cabdi xaashi ayaa waxaa lagu qabanqaabinayaa magaalada muqdisho waxaana soconaya ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi guuleed ayaa muqdisho ka wada howl uu ku doonayo inuu ku dhabarjabiyo cabdi xaashi gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya senataro fara badan ayaa ku qulqulaya hoteelo ku yaala magaalada muqdisho waxaana muuqanaya inay tani tahay mid lagu doonayo in cabdi xaashi lagu weeraro balse mooshinkaasi ma yahay mid soconaya sidee bayna u dhici doontaa waxaan kuusoo gudbin doonaa hadduu alla idmo habka dhaqdhaqaaqa mooshinka aawa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo ku diyaarinayo magaalada muqdisho iyo hoteelada qaar oo aad moodo in lagu sii xodxodanayo senatarada si xilka looga qaado cabdi xaashi oo loo arkay inuu dhabarjibin ku yahay xilka madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo cabdi xaashi ayaa haysta kalsoonida shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan waana nin ka haysta kalsooni maamul goboleedyada dalka waana nin ka haysta kalsoonida shacabka senataradana intooda badan waxay hoos tagaan isaga balse waynu arki doonaa awoodda cabdi xaashi xilka looga qaadayo madaxweynaha dalka muxuu yiri kala qobqob kala qobqob kala qobqob kala qobqob kala qobqob kala qabsan yihiin igu celi kala qobqob kala qabsan yihiin sidoo kalena warbixinada kale oo idin hayana waxa kamid ah haddii ay dhacdo garoonka inuu August sii xirnaado maxay tahay shacabka ama go'aanka siyaasiyiinta waxaa jira marka diyaar garow jawaab mudan oo aan u baahanahay inaan sii qariyo inta laga gaarayo waqtiga garoonka maadaama la yiri 5 milyan oo coronavirus lama helin sida awgeed waxa la yiri 5 milyan inta laga helayo garoonka diyaaradaha waa sii xirnaan doonaan balse mucaaradku maxay ka sameey doonaan kala qabsan yihiin waxaa dhici karta inay jawaab cad ka bixiyaan xogaga mucaaradka dowladda farmaajo macalinka shigshiga oo inta badan aan ku hadalka afka Soomaaliga uu dhibayo iyo macalinka diinta islaamka aan aqoon laakiin yaqaan xawataaka waxaa dhici karta inay jawaab cad ka bixiyaan hase yeeshee jawaabta ku salaysan arrinka ku saabsan barnaamijka iyo garoonkana waxaan kuusoo gudbin doonaa wixii kusoo kordhaa dhaqdhaqaaqa siyaasadda soo socota hadduu alla idmo dhinacii 2 sano iyo guuxa ee taageerayaasha farmaajo maadaama la yiri axmed madoobe ayaa 2 sano loogu daraya wallaahi inay isku kaadiyaan wax yaraan uga dhiman ooyinta ka dhacaysa gobolka gado ma malaysan kartid waa wareey ma axmed madoobe uu aqoonsaday waa wareey waxaad moodaa in ay jiraan dadka ku faraxsan iyo dadka ka naxay axmed madoobe in loogu daro waqti waxay kala noqonayaan kaaf iyo kala dheeri 99% waxaa ku farxay shacabka Soomaaliyeed ma wada xumo dadka gobolka gada degan Mareyxaanku ma wada xumo waxaa ku jira fartaag Mareyxaanku ma wada xumo waxaa ku jira senatarkan wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan Mareyxaanku ma wada xumo waxaa ku jira dad wanaagsan oo kaalin fiican qaadan kara laakiin macalinka shigshiga muxuu yiri حاوتاك كليا نقانا مركا أن يراهدو مدحوين واحد ترى كلا قب haddii axmed madoobe uu kursiga sanadkan ama 4 sano soo socota uu sidiisa ugu fadhiyo shaki kuma jiro in ay isbedel weyn kooxda farmaajo ama dhabarjab xoog leh oo ku dhici doona balse waanu sugi doonaa natiijada laga dhaxlo axmed madoobe maadaama dagaalkiisu uu noqday hal bacaad lagu lisay macalinka shigshiga waxaad moodaa in ay sanadkiisu uu gabagaba marayo waxaa dhici karta in uu isku dayo dhaqdhaqaaq ciidan maadaama uu tala ka qaadanayo keligii taliyaha fadhiya asmara iyo weliba ra-iisul wasaaraha Itoobiya waxaana suurtagala inuu sameeyo dhaqdhaqaaq ciidan balse diyaar garowga iyo iibsashada ciidanka xoogga dalka ayaan u baahanaa dadka inaan si dhab ugu sheego 90% taliska ciidanka farmaajo waa gadayay ciidanka koofiya guduuda waxaa loola dhaqmay qaabkii shalay loola dhaqmi jiray boorsadii lacagta ahayd ee iyagu isticmaali jireen loola isticmaalaya hadday iyagu laaluush bixinayaan waa xalaal markay mucaaradku laaluush bixiyaan waa xaraan farmaajo markuu bixinayo laaluushku waa xalaal marka aw mucaaradku ay laaluushka bixinayaan waa xaraan Itoobiya markay wataan hawiye waa xalaal waa xaraan markaan aniga watana waa xalaal Itoobiya markay kabla laxdaaroodku uu wato waa xaraan sida Allahu naxariista Cabdullaahi Yuusuf markuu wada jiray kabla laxdaarood uu qayb ka yahay kabla luux markay wataan Itoobiya waa xaraan markaan aniga watana waa xalaal hawiyuhu markay Itoobiyaanku isla socdaan waa qaran dumis markaan aniga Itoobiya watana waa caadi waxaan afkooda ka hayaa dad shalay Itoobiyan caybka dadka u ooyi jiray qaaradda Yurubna caan ka ahaa waxay yiraahdeen markuu Cabdullaahi Yuusuf kabla laxdaarooda oo watay wallahi waa xaraan Soomaaliya wala xor Soomaaliya xorriyad bay u baahan tahay Soomaaliya qalbi dhagax markuu farmaajo watana Soomaaliya guul bay u tahay mari maxaan ka wada Itoobiya markay ay wado markuu farmaajo wato Soomaaliya guul bay u tahay Itoobiya kabla laxdaarood markay wataana Soomaaliya xoreyn bay u baahan tahay Itoobiya markay hawiyo wataana Soomaaliya xorriyad bay u baahan tahay Itoobiya markuu wato farmaajona Soomaaliya waa wax la soo koobi kara maaha
nin aad u muhiim ah oo arrimaha siyaasadana aad ugu xeeldheer ayaan isku dayi doonaa bal haddii waqtigu ii saamaxo inaan dadweynaha tuso si uu asna aragtidiisa u dhiib may maqlaysaa waa ku maqlaa balwan waa ku salaamay iyo inta meesha ku jirtay inta dhageysan doontaba si kooban waxaan kaa rabaa si kooban arrinta siyaasadda hadda taagan intaad adigoo og tahay nagu shub awalan waan ku salaamay salaan kadib waxaan u soo galay waxay tahay dawladda hadda maxamed cabdullaahi farmaajo adeega iyo indha adeega iyo ismaqiiqinimada iyo waxa uu la soo baxay ayaaba lala yaaban yahay hadda wuxuu taagan yahayba waa nin hamiyey in uu saacadan ka shaqeeyo aqalka sare siduu u burburi lahay oo cabdixaash uga tuuri lahay marka waxyaabaha hadda taagan oo lala yaaban yahay ka mid tahay hadda ka horna waataan ku dhahay lagama yaabo in ay furaan elaboorka waxa elaboorka aan loo furayna waxay tahay in ay aqalka sare si toos ay u wada yimaadaan oo markaas ay mooshin korsideeda ayaan cabdixaashi iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad lama loodi karo laakiin ninkaana la rabaa ay isku reerka yihiin in la yiraahdo sidii tii jawaari oo kale marka waxa u soo galay waxay tahay xasan sheekh iyo farmaajo in badana dad odayaala tiin iyo dad waxa tiin waxgarada iyo dad waxa tiin dulqaad badan iyo la dhahay cabdixaashi sidii jawaari haday ku dhacdo nin mudlooda dambe xataa guur male waxa u soo galay waa taas maxaad ula jeedaa halkaas ii fasir haddii cabdixaashi loo burbursado sida jawaari oo kale maxaa tiri sida jawaari oo kale hadda maanta cabdixaashi waxa uu dulqaadka ama odaytinimada uu muujiyo waa laba siyaabood kow wuxuu u dulqaadka iyo wanaagga iyo odaytinimada iyo dowladnimada ayuu u muujiyey midda labaadna wuxuu u muujiyey nimankan garab uu siiyey xasan sheekh iyo sheekh shariif waay marka nimankii xasan sheekh iyo shariif asoo garab siiyey maanta sidii jawaari oo kale in koofiye cas iyo tigniko loo adeegsado gabar mudulooda guur lama laha micnaha uu ula jeedo siyaasiga aan warbixintaasi na siinayay wax kale ma aha cabdixaashi waxaa loo diyaariyey waddadii jawaare hiraab ama mudulood siiba shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud haddii cabdixaashi uu farmaajo sidii jawaari oo kale muqdisho ugu galo hadday madaxweyne noqdaan eedda lambar 1 anaa iskale ayagana waxay mari doonaan waddada la marsiiyo cabdixaashi wuxuu ninkaa hadalka u dhigayaa waxay tahay jawaari iyaga hortooda lagu dhibaateeyey waxba maysan ka qaban maxaa yeele waddanku markaasi bilow ayuu ahaa hadda waxay maraysaa waa filinka dhammaadkiisa haddii cabdixaashi uu farmaajo ku weeraro magaalada muqdisho oo ay dhacdo in xilka laga qaado iyagoo taagan aniga waan aqaana horta dabeecaddooda horena waan uga hadlay weligayna waad igu xasuusan doontaan tuug baa guri soo galay waxay yidhahdeen waa u gambannahay ninkii reer xamarka ahaa islaamtiisaa kiciso waxay tiri war balaaya allah kugu riday gajeelku ka soo gudbay markaasuu reer xamarka wuxuu yidhi waa u gambanahay tuuggii waa soo galay qolkii soo jibiyey way ka kicisay islaamtii waxay tiri war ninkaygow ka wuxuu yidhi aamus waa u gambana hadduu rag yahay qolkaas soo galo qolkii uu soo galay islaantii ka kiciso waxay tiri war ninkaygow ka waxay tiri nin raga hadduu yahay lugtaada ha taabto wuxuu yahay anaa tusaye islaantii lugta ka qabta dhab markaasay tiri lugta uga hayaa nin raga hadduu yahay garabkaa ku saarto dheh garabka u saarta markaasuu wuxuu yidhi iska dulqaado wuri soomaalinimaa ka weyn macnaa inta kale anshax maaha iska dulqaado wuri 2 daqiiqa le waaye 2 daqiiqa le waaye iska dulqaado 2 daqiiqo waaye iska dulqaado intaas markay xaaladdu marayso aqliga qofkaa uu ku hadlay iyo ulajeedkaan leeyahaan rabaa inaan tarjamo jawaariyaa la burbursaday carar ha ka soo gudbaanaa layidhi cabdiraxmaan cabdishakuura guriga loogu galay carar ha soo gudbaanaa layidhi shariifaa 5 jeer la weeraray carar ha soo gudbaanaa layidhi garoonka diyaaradaha lagu bahdilay labada madaxweyne carar ha soo gudbaanaa layidhi carar waxay maraysaa marka fiinaal cabdixaashi mooshinka muqdisho ka socda haddii lagu galaafto oo ay dhacdo in koofiya gudud loo adeegsado sheekadu waxa weeye garabka u isaartay iska dulqaado 2 daqiiqa le waaye 2 goodle 2 daqiiqa le waaye reer xamarka iska dulqaado 2 goodle 2 daqiiqa le waaye maxay nin macnaha 2 goodle waxa loola jeedaa reer xamarka muqdisho degana waxay 2 goodle u yaqaanaan qabaa'ilada kale oo macnaha qofka muqdisho
gobol kale ka yimaadeen laba goodla u yaqaanaan markii islaantii garabka laga saarto muxuu yiri laba goodla waa laba daqiiqo waa iska dulqaad u dhahay marka hadda hawiye mid haysata siiba mudulood haddii cabdi xaashi hortooda lagu weeraro laba daqiiqo laba goodla waa laba daqiiqo waa iska dulqaaday marayaan wax u haray mala ganjeelka markii la soo jibinayo waa u sheegay waxay dhaheen iyaga ma awooda qolkii uu soo jibiyey iyaga ma awooda sariirtii gabadhii lugta ka qabtay iyaga ma awooda garabka hadda la saarna garabka haddii la saarto shariif iyo xasan meeshii ku dambayn doonaan indhihiina ku arka wax u haray mala haddii jawaari oo u hiiliya firi dhan kalena waan u dhigaa sirba ha ahaatee wallahi sirba ha ahaatee runtan idiin sheegaa tan sir ahaanaan idinkugu sheegaa cabdi xaashi waxaa loo geeya lacag waxaa la yidhi niyo hawiyahan waa noo jabeene niyuhu na dhaafaa le nacalaa shaytaan ku yaale hawiyu waa noo jabee na dhaafaa le hawiyu u hiiliyey runta markaan idiin sheego cabdi xaashi hawiyu u hiiliyey iyadoo lacagna loo ogol yahay madaxa in la saartana la rabo ayaa lacag inta la duldhigo uu yidhi hawiyan caawinaya markaasaa lagu yidhi hawiya waa noo jabee nacalaa shaytaan ku yaale dhaaf haddii hawiya uu ku dhex noolaa gabadha uu qabo waa gabar ku famila muuse suudiya lexuu qaraabo hoose yihiin aadna uma sii tilmaamayo waa gabar hawiye ah waa gabar hiraaba waa gabar abgaara waa gabar kasi ah sii deji cabdi xaashi indha hadda ka hor baa nin mugtaa reer bari ah tanna raalli ahaadaya nin reer barigan inta badan hadalka lagu soo qaataa maaha inaan anigu ka wado ninka waan hubaa waa reer bari laakiin reer barigaa lagula kaftamaa reer bariga hadda ka hor waxaa la yidhi nin reer bari ah naftiyaa xogaa waxaa la yidhi wuxuu gaaray meeshii ugu dambaysay wuu xanuunsadaa naftiyaa marka halkaan soo maraysa markaasaa la yidhi yaasiin markaasoo intuu u fiiri wuxuu yidhi raganimo xumadiinna aan aqaanaaye idinkoo taagan malagu nafta iga qaado yidhi raganimo xumadiinna aan garanayaaye idinkoo taagan malaga nafta iga qaado yidhi taa marka waa dembi laakiin tusaalaha ku filan oo aan rabo dadku inay fahmaan waxay tahay raganimo xumadiinaan arkayaaye meesha ay maraysa fiiri raganimo xumadiinaan u jeedaa jawaariya laydinku hor burbursadee raganimo xumadiinaan u jeedaaye haddii cabdi xaashi hutiinna lagu burbursado ninkii reer barina waa soo xasuusanaa ninka reer xamarkaa yidhi laba good laba daqiiqa waa iska dulqaada yarina waa soo xasuusanaa indhaan u jeeda marka indhuhu caadi maaha dulqaadka faraha badanna hadda ka hor waa iska sheeko badan taha waa iska sheekadeedu waa iska dheertaa laakiin inta badan si dhaba ayaan dadka ugu sheegayaa maaha inaan maanta dhan idinka qosliyo mogtaa inaan dhaba idin sheeg weyaan fiinaalka hawiye siyaasadooda wuxuu marayaa meesha ugu dambaysa cabdi xaashi naf u hartay oo kale malaha haddii cabdi xaashi uu u hiiliyey abaalka caawa boorsada fiiri anaa idin sheegaya boorso lacaga oo muushina taalla handadaada SMS-ka weliba gabar xildhibaanada ma xasuustaan gabadhan sacdiye in la yidhahdaan filaya haddaan qaldanayn gabadha magaceeda muxuu ahaa gabadha magaceeda sugsug gabadhii idin doodi jirta dee reer banaadir u doodaysa magaceeda muxuu ahaa oo sacdiye gabadha sacdiye xildhibaanada ahayd SMS hanjabaada loo diray gabadha sacdiye xasan firimbi SMS hanjabaada loo diray hawiye haddaad difaacdo SMS hanjabaada lagu dira iyagana waa kaa jiifanaya waxay maraysaa marka meeshii ugu adkayd hadda waxaa laydinka doonayaa marka hal weji oo kama dambayna laydinka doonayaa cabdi xaashi turbaana loo tumaya turrina waa loo wataa haddii seefta hawiye hortooda lagu marsiiyo oo sidii jawaari oo kale ku dhacdo tii ugu xumayd rajo ma laga yaabaa inaad dhahdaan markaas hawiye rajuu ka leeyahay siyaasadda no rajo kama lahaanayo waxaan idinka rabaa marka raganimadiina reer bariga wuxuu yidhi raganimadiinaan ujeeda raganimo xumadiinaan aqaanaa naftaa laga qaado yidhi maanta waxaan u jeedaa jiifkiina faraha badan kollay karti waad leedihin laakiin waa jiif dheertiin haddii ninkaas uu hortiina lagu waxyeeleeyo oo hortiina ninkaas lagu karbaasho oo sida jawaari oo kale loo galo waxa idin haray haba yaraatee malaha shakina kuma jiro inuu shariifna ku xigayo xasan sheekhna ku xigayo maxaa yeelay ninkii daawaday weerarkan hadda lagu hayo cabdi xaashiya diidan beri isagay ku imaanaysaa marka waa finaalkii ugu dambeeyey kolley mare idima wax idin hara ma laha natiijadiinu meeshaasay mareen waa sax waa diyaargarowdeen lacaga fara badanaad siinaysaan ciidanka laakiin mooshinkaas u diyaargarooba fariintan marka waxaan idinka rabaa mid walba inuu meel ku qorto jawaari oo u hilinaya xasan sheekh u hilinaya shariif ood ogeedeen ayuu farmaajo muqdisho ku bahdilay
maxamed mursal oo damcay inuu farmaajo ka soo horjeestana waa la bahdilay cabdi xaashi oo in muddo hawiye ku dhex jiran oo diiday lacagtii uu maxamed mursal qaatay haddaad raganimo aad ku difaacdo aad yeelan weyso maxaa ku yaalla maxamed mursal lacagtiisuu qaatay wuu qaatay jeebkuu gashtay cabdi xaashina wuxuu yidhi hawiye ayaan u helinayaa laba marka idin bannaan markhaati ka noqda idinku ma tihiin siyaasiyiinta mogta siyaasiyiinta ma tihiin shacbaa tihiin markhaati ka noqda maxamed mursal wuxuu qaatay laaluush cabdi xaashina wuxuu yidhi laaluush ma rabee waxaan difaacayaa qarannimada dalka meeshana ma joogaan runtaan idiin sheegaya meesha meel dhul daarood ma aha dhul dirna ma aha waa dhul hawiye ceebta ku soo gaaraysa fiiriya meeshan cabdi xaashi ma jooga jubbaland mana jooga puntland ee banaadir uu joogaa ceebta ku soo gaaraysa eeg marka haddii cabdi xaashi hortaada lagu bahdilo ogow maanta kadib cid bili aadana oo inta kuu istaagto ku difaacaysa lama arkayo maxaa yeelay adiga hiila ma lihid hadday dhacdo marka dhul hawiye in cabdi xaashi lagu dhibaateeyo caawana weliba waa iga ogeysiis meel ku qorta qof kastoo soomaaliyeed waxaad tidhaahdaan hawiye haddaad u hiiliso waa lagugu hordilaa hawiye haddaad u hiiliso waa lagugu hordilaa meel ku qorta hadday difaacaan waa raganimo hadday difaaci waayaan meel ku qorta ogaada dhulka dhul hawiye weeye dhul daarood ma aha dhul dir maaha dhulka cabdi xaashi lagu bahdili doono kuu noqon mayso qiil waxba igama gelin ma kuu noqonayso qiil kuu noqon mayso ma ogeyn qiil ma kuu noqonayso barrid siyaasadaan rajo ka leeyahay qiil kuu noqon mayso anigu marka saadaasheedaan rabaa markan inaan dadka usii sheego inta aanan barnaamijka gabagabayn saadaasha shig iigu celi bal iigu celi mar labaad ninkaas hadduu idinka guulaysto maxaa idin yaalla marka ilaah idinku dhaariya hadduu nin sa u hadlayo uu idinka kaarto badiyo oo diinta islaamka ma aqaanay xaawataa kan aqaanaa yidhi hadduu kaa kaarto badiyo maalin walba uu sidan kula dhaqmayo maxaa yaalla weliba waa madaxweynahan aan aqoonin magaca sodohdii iyo sodogtay abshiro aadan bishaare aadan saadaasha marka aan dadweynaha usii sheegayaan idiin sheegaya horta wax walba oo dhici doona ilaah baa og cabdiraxmaan cabdishakuur ninka la yidhaahdo shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud dadka ugu miisaanka culus muqdisho weeyaan cabdi xaashi arrintiisa wax ka qabta isku daya inaad u hiilisaan isku daya inaad garab istaagtaan haddii la waayo laba goodna waa laba daqiiqa u dhiman hadday sheekadu noqoto waxaan isku soo noqonaynaa in qof dambe oo dirac iyo qof dambe oo raxaweyna ay inta istaagto idin hiilinayn waana ceb intaada laag waxaan rabaa marka taas in laga digtoonaado ka hor dhici maayo waan eegayaa waxaana isku taxallujinayaa maalmaha nagu soo aadan inta aan la gaarin washamsigiisa washamsi xooglaa lagu qaadi doonaa waxaa weerari doonaa lacagta madaxweyne farmaajo lagu weeraraya waxaan soo sheegi doonaa inta aan la gaarin muddada ayaan kasoo warrami doonaa ilaan saacad walba si hordhac ayaan dadka ugu sheegaa mar walbana waan kasoo sheekeeyaa marxaladdu meesha ay marayso laba goodna waa laba daqiiqa u dhiman iyo macalinka shigshigka kaa guulaysto waa dhib inteeda la eg marka insha allah waxaan leeyahay tilmaam u baahan dadka weeyaan in ay dadka soomaaliyeedna ay fahmaan intaasaan kusoo gabagabaynaya barnaamijkaygii dabagalka wararka xilligan waxaan aad ugu mahadcelinayaa dadka barnaamijkayga sheergareeya oo ka mudan inaan u mahadceliyo dadka kale waxaan kaloon aad ugu mahadcelinayaa dadka barnaamijkayga daawanaya oo iyaguna ixtiraam iyo sharaf xaggayga kule meel kastoo aad joogtaan waqtigu ha idin wacnaado waan idiin mahadcelinayaa kun iyo kow jeer mar walba waxaan ku faanaa waa shacabkayga mar walba waxaan ku faanaa waa dadkayga waxaan ahay codka u hadla dadka maanta qalinkaas lagu weerarayo mustaqbalka siyaasadda dalkana wuxuu marayaa meel gabagaba ah hadda filimku waa dhammaad filimada ma daawataan waxaa la marayaa xilliga ugu dambeeyo kaabalaadarka keliya nool filimka meesha uu marayo waa gabagabo qof walbow dhegihiinna ha dheeraadaan meel dheer mar walba inaad heega noqotaan xogaga mucaaradka iyo dadka maanta isbedel doonka ah ee kasoo horjeeda farmaajo qabiil walba isugu jiraan ma aha hal qabiil oo keliya ma aha hal qolo oo keliya maanta waxa kasoo horjeeda waa dir daarood iyo hawiye ayaa kasoo horjeeda waa farmaajo iyo qayb yar oo raxaweyna oo isla socda waxaan rajaynaynaa marka in ay tani noqon doonto mid aan dhammaanteen ka wada faa'iidaysano insha allah mar walbana waxaan rabaa in aan finaalka dambe aan idinkugu sheegayo wax kale maaha guushu waa soo dhowdahay laakiin mar walba waxaa leeyahay shar ku tasho khayr waxba kaama dhibeen mar walba markaa idin kululaynayad arkaysaan shar ku tasho khayr waxba kaama dhibo waxaan rabaa in aad sii ogaataan inta aan la gaarin waqtiga waxaan rabaa marka inaan dadweynahayga sharafta badan u sheego aniga cayda kooxda cayaanka baraha bulshada oo ku raaxaystaa
weliba marqaanku iima baxo haddaan lay caayin marqaanka maba ii baxdo farahaaga waa free intaad ifiirsanayso farahaaga alla subxaana wa tacaala indhana uma samayn dhegana uma samayn waxaan la hadlayaa cayaanka baraha bulshada ee inta badan laifafkayga qoraal kusoo qora aniga danta aan kaa leeyahay waa indhahaaga iyo dhegahaaga maxaa iga galay farahaaga waa free intaad ifiirsanayso waxaad doontaad iisoo qori kartaa sidaa doontaad ii caay kartaa aniga dantaydu waxa weeye in codkaygu uu dhegahaaga gaaro maxaa iga maqan haddaadba ifiirsanayso maxaa iga galay farahaaga haddaadba i dhegaysanayso maxaa iga galay farahaaga haddaadba ila socoto oo aad waqti walba barnaamijkayga heegan u tahay farahaaga waa free inta iisoo qorayso qoraalna mar kale nugu celinaya haddaad baraha bulshada ku arki jirteen dad dhahaya hebel baloogaan saaraya anigu i caayay aniga caayada marqaankaaba igugu baxa anaa hadda kuu sheegaya waa ku raaxaystaa waa ku hurdaa waa ku soo toosaa adna waxaad isleedihiin balwaan ka xanaaji balwaan caydaada farxaday u tahay waxaan ku leeyahay marka farahaaga waa free intaad ifiirsanayso waxaad doontaad soo qori kartaa maxaa yeele waad ifiirsanaysaa intaad idhegaysanayso waxaad doontaad soo qori kartaa maxaa yeele waad idhegaysanaysaa danta aan kaa leeyahay waa dhegahaaga iyo indhahaaga farahaaga waxba igama gelin haddaad shalay arki jirto qof baloo ku saaraya waqtiga aad caytamayso balwaan wuu ku raaxaystaa weliba qoraalkaaga wuxuu u yahay farxad waayo waqtiyaad igelisaa waad i daawataa maxaa iga dhiman haddaadba aniga labada habeennimo ifiirsanayso wax iga dhiman ma laha marka cayaanka waxaan u sheegayaa sidaad la socotaan ogaada aflagaadada xaggayga raaxay kartaa bashal muusigadu wuxuu ii marayaa meeshii ugu dambaysa marqaankuna waabay gaaraa marka aan adiga aad caytamayso si waxaan kuu tusaa oo aan la soo koobi karin marka ogaada cayda balwaan wuu ku farxaaya kama naxo sidoo kalena la soco inaad qofka bini'aadankana aad ogaatid ilaahay faraha dhega uma samayn indho dan iyo hella farahaaga kama lihi dan iyo hella kama lihi waxaan daneeyo waa indhahaaga iyo dhegahaaga bal ka warran adoo caytamaya haddaad ifiirsanayso maxaa iga kaa galay waaba ifiirsanaysaay haddaadba i dhegaysanayso caydaada maxaa iga galay waxaan aad ugu hambalaynayaa dadka wanaagga jecel oo farxadda badan ee aniga i taageersan ee i daawada cayayaankana intaasaan ugu talagalay intaana ka bixin waxaan rabaa dulqaad xumada kooxda farmaajo taageerta inaan iisoo gudbiyo weligay intaan barnaamij qabanaya anoo qoslayaan hadlaaye waa maxay dadka wada caraysan ee farmaajo taageersan dabeecadaha dib u eegaan siduu madaxweynuhu u tartaro ayay u tartaraan dhammaantood madaxweynuhu markuu hadlayo muxuu sameeyaa sidaan u hadlaa gabadha iyo wiilka farmaajo taageera daawada sibuu asaga dhanba u xanaaqsan yahay indha caddays oo qofka rabo inuu indhaha ka galo maaha hadalka wanaagsani iyo siyaasaddu indha caddays maaha hadalka wanaagsan iyo la hadlidda shacabka indha caddays maaha ku xisaabtan inuu xor yahay qofka ku daawanaya ku xisaabtan inuu sharaf leeyahay qofka ku daawanaya ku xisaabtan inuu kaa aqoon badan yahay qofka ku daawanaya mar walba isku day inaad u qosasho si uu qofka u dego la hadal qofka hana caytame ku bandhig hadalka cod caddayna tusaale aniga farmaajo ma caayo wuxuu sheego ayaan ummadda u sheegaa bal ka waran haddaan aniga farmaajo codkiisa shidi waayo muxuu noqonayaa qof aflagaadoonaya adigoonan caytamin ma hadli kartaa adigoonan suuroon oo hadba saas isku jijibin ma hadli kartaa adigoonan wadaninimo iigu soo gamban ma hadli kartaa adigoonan qofka bini'aadanka iyo jinsiyadiisa ku xadgudbin ma hadli kartaa ma isku dayi kartaa in aad labadii habeennimo intaad soo fadhiisato dad ay u dhafraan adiga darta ma isku dayi kartaa intaa sharafta iyo sumcadda aa lagu dheeryahay wax kala maaha waa la qoslaa markii la hadlaya laysma jijibsho waa la qoslaa markii la hadlaya indha caddays lelama yimaado baraha bulshada waa lagu kala awood badan yahay kartida iyo codkana ilaah baa dadka u dhaliyay maxaa yeelay soomaaliya waxaa madaxweyne ka ah nin saan u hadlaya aniguna ilaah wuxuu u siiyey cod iyo weliba karti aan ku sheekayn karo intaasoo daqiiqo nina kala qobqob maanta waxaan xifdi karaa oo aan soo gudbi karaa in soomaaliya aysan xorriyad qaadan waqtiguu farmaajo noo sheegay sida xorriyadda markaan qaadanayna waxaa laga joogaa 30 sano soo socda 2020 sankaan ku jiro markaasay u gafayaan xafidullah axmed madoobe markaasay u gafayaan xafidullah shariif sheekh axmed markaasay u gafayaan xafidullah cabdiraxmaan cabdishakuur warsame markaasay u gafayaan xasan sheekh maxamuud bal ka waran marka kartida lagu dheeryahay qaran dumis hebel waa qaran dumis hebel waa soos hebel dowladnimo diidan yahay hebel waa soos indha caddayska siyaa wax looga qaadaya adoona indha caddayn adoona qofka u gafin ma sheekayn kartaa adoona indha caddayn ma sheekayn kartaa adoona qofka la caytimin caddayn ma keeni kartaa ma keeni kartaa caddayn cabdiraxmaan cabdishakuur ma keeni kartaa caddayn ku saabsan axmed madoobe ma haysaa cod ma haysaa wax cad ma ila hore maa karaysaa
ما هيسا عدينتا عن مدحوين فرماجة كهيو كله سيدا كلا قب سان عدين مو كيني كتا مسكو دي كتا إناد قفك دبقل كو سميسا كانت عد كيسا مسكو دي كتا إناد قفك فشليسا سيسكو ميدا ما كيني كتا قف ما أنت سياسي أو أن فرماجة أهين أو ما أنت تاغن إنو ها دينيا فيري إيا حقا آدابتا إيا الدلقات كمان ما كيني كتا قف كله أنا قد دينتا ما أقانا حاوتا كان أقانا ما كيني كتا عد كيسا أحمد مدوبي ما حد يقول كفيسا ما كيني كتا عد مدن عبد الرحمن عبد الشكور مية ما حد يقول كفيسا ما كيني كتا عد حسن الشيخ محمود مية ما حد يقول كفيسا أنا جو حنكو هينا دتكي يولي بسجو أو تاجر ولا هي كلا قب سيداس أي وحلو دياريا سيداس أي الله قنع يا شعبك سيداس أي الله دياريا عدد عدينا عد ما أنتوا حيجوا يدين كرتمرها محيلة عدينتي وعد إنها ينكساري مرك أوجو دولة دمدو إن عديس معها أوجو سياسته إن عديس معها أوجو سياسته معها إن قفك العاية waxa weeyaan inaad keento cadeyno tiraada madaxweynuhu wuxuu yiri Soomaaliya 30 sano ayaa ka soo wareegtay xorriyadda qofku wuxuu ku leeyahay pinlow ayaa tahay madaxweynaha ma dhihin fiiriya waxaan dhahay madaxweynaha 30 sano ayaa ka soo wareegtay xorriyadda ayuu yiri gabadha ila hadlayso waxay leedahay ama wiil wuxuu leeyahay balwaan been baad sheegaysaa madaxweynaheena ma dhihin aniga maxaa waajib ugu ah inaan dhaho ila dhageyso xorriyadda markaan qaadanayna waxaa laga joogaa 30 sano soo socda 2020 sanadkan ku jirno gabadhu way qanacday iyo wiilkii madaxweynaha ma dhihin waa shiday madaxweynuhu ma yaqaano ku hadalka af Soomaaliya ama wuxuu gafaa magaca seedigi sadohdiis waxa tiri waa beenta ma madaxweynihii ba sadohda gafi kara indhaha adiga gashay waxaan ku leeyahay isdaji biyo qabo ab waxaan ahay wariye maxaa dhacay miitu sakata cadeyn aniga ku haya madaxweynuhu sadohda magaceeda ma yaqaan waxa tiri been baad sheegaysaa waxaan ku ri madaxweynaha sadohda markaan weydiyo sadaqtay ayuu dhahaa waxa tiri been baad sheegaysaa ما مدحوينها أنا ديه كرين صدقني ما ديه كرام كوري وأنا عدين كرا إن عديس ما همكت صدقني وحن كله يهبي قبو أب مدحوينه صدقني ده هي صدقتي يقول على مدحوينه هي صدقتي مدحوينه صدق جركو علي هي صدقتي أنت سكدي واحد لا دحين مدحوينه صدقني شوية قنا صدقتي بكون إذا كذب ويا قنا ما حد كله ما يقنا ما يقنا قبو يقنا أبشر بشارة أبشروا أبشروا آدم بشارة آدم markaas wad qanacaysaa cod cadayna malay ma kartaan qofka aad weeraraysaan please samaysta codad qofka aad wax ka sheegaysaan keena codad in cadays nabadiyo nolol maaha adduunyada saas laguma dhaqo nabadiyo nolol adoona dhihin istiji cadankeen iqanci waxaan ahay daawadahaga si fiican ii deji waxaan ahay qof tixgelin kaa mudan ma ku qanci kartaa dadka shacabka sidaas markaan ku yiraahdo madaxweynuhu waa jaraynaya markuu hadlayo waxaad tiri been baad sheegaysaa kala qabsayihiin waxaan si guud ugu mahadcelinayaa marka dadka inta badan iga taakuleeya codadka waxaa mudan tixgelin iyo sharaf waxaa mudan dadka inta badan iga garab istaaga codadka badanaaba marka aad hadlaysaan waxaan idinka waaninayaa indha cadays maaha facebooku indha cadays maaha siyaasaddu muufa maaha ayaa maqli jiray waxaan leeyahay baraha bulshada indha cadays maaha qanci dadweynaha si degan cadayna la imo inay nabadiyo nolol madaxweynehena ha jaraynin waxaad isticmaashaa cod cadayna isku day inaad qanciso qofka ku daawanaya ha aflagaadoon hooyaha caayin waxaad tidhaahdaa cadayntaas ma haysaa aflagaado axmed madoobe ka dhana maya أحمد لحول maxay taraysaa cadayn maxay yeelay waxaan ku hayaa madaxweynaha noo dhahaya madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo difaacdo oo dhahaya diinta ma aqaanay xawataa kan aqaana ma keeni kartaa cadayn saas xag diiniyan aan ku keenaya xagga gafgafitaankaan ku keenaya ma haysaa intaasoo dhan soomaalidu indha cadays waxba ugama qaadaysta ma aha indha cadays baraha bulshada mid lagu joogo adoona jarayn af Soomaali cidla la iman dawladnimadu way horumartay yaa ka yeelay dadka jaahiliin miya mase tuulay joogaan qof international ku daawanaya qurbaha Mareykan ilaa Yurub jooga intaas inaad ogaataan la ka doonaya waa xor qofka ifirsanaya marka la ku celinaya waa xor qofka ifirsanaya farahaaga shaqo kuma leh afkaaga waxa doonta ka dheh ee haddii qof nabad iyo nolol taageersan uu keeno cadayn waxaan hubaa inuu qofkaasi u qalmo in la daawado
laakiin markaad af soomaali cidlaa la timaado kala qobqob kala qobqob kala qobqob kala qobqob kala qobqob kala qobqob kala qabsan yihiin dabagal saasaa la yidhahdaa annaga dabagalkaan idiin fasiraya waxaan idinkugu fasirayaa laba arrin waagu markuu baryo ilaa uu gobolka uu ka dhacayo annagu dabagalkaas waxaan ku bixinaa lacag iyo waqti adna af soomaali cidlaad facebook la soo fariisanaya annagana lacagaan ku bixinaa mar walba lacagaan ku bixinaa waxaan isku daynaa inaanu dabagalkaas lacag ku bixino waxaan isku daynaa inaanu qof kasta oo nala soo xiriiraya aanu tixgelin siino intaas waqtiga maxaan ku bixinaa inaan ummadayda ku ceeboobin laakiin maxaa loo baahaya kala qobqob kala qobqob kala qobqob oo kala keen markii laga raayo kooxda farmaajo waxay soo qoraan qabiilka waa laga gudbay qabyaaladda waa laga wanaagsan yahay ay soo qoraan mugta iyo waxay soo qoraan fake news waxay rabaan mugta markuu filimku ku daato waaye markay filimkoodu ay cuno ay baaba'san yihiin waxay soo qoraan fake news qabiilka waa laga gudbay waa markay fashilan yihiin markay sheekadu marka ay aad maqashid iyagoo dhahaya fake news qabiilka waa laga gudbay ay ku dhahayan waa markay farmaajo ku daadsan tahay haddii qabiil laga gudbay oo waxa la sheegaya ay been yihiin waxaan kuu sheegayaa qabiil haddii laga gudbay madaxweyne farmaajo ka bilaabeen haddii qabiil laga gudbay waxaan kaa rabaa inta muuqata inaad dib u eegto markii jawaan noocaas isticmaalaan markaad aragtid in farmaajo ay ku daadsantaha waxay soo qoraan qabiilka waa laga gudbay soomaalinimo 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 ay soo qorayaan markay farmaajo cirka marayaan cirka isla aadayaan filimkiina eeyaa cunay annaga had 24 saac waxaan rabnaa inaan dadkeena mar kastaba raali gelino tusno xaqiiqda dhabta ah waan u hiilinaa ummadayduna saasay ula socdaan insha allah marka aad iyo aad u mahadsan tihiin intaynu barnaamijka lamid ku kulmi doono daawadaha sharafta leh ee ku xiran facebookgayga aad iyo aad xaggayga qadarin iyo sharaf uga mudan tihiin soo dhawaada dhammaantiin aad baan idin jeclahay shacabkayga aadaan u tixgeliya ixtiraamaan leeyahay ma ina caddeeyo markaan warka gudbinayo ma ina caddeeyo hadalka aan gudbinayo miisaan uu leeyahay cod iyo caddayn uu leeyahay wuxuu leeyahay meel aan ka soo xigto indha caddaysiyo soomaaliya ha noolaato ma dhahay weligay maaragta markaan soo galay soomaaliya ha noolaato anoo dhahay ma aha ku qanci dadka soomaaliya ha noolaato ma aha qancin aad qof ku qanci karto ku qanci wax caddayna aad ummadda soomaaliyeed u hayso insha allah marka aad u mahadsantiin intaanu barnaamijka lamid ku kulmi doono waa cabdilaahi balwaan oo milyan jeer u mahadcelinaya dadka daawada barnaamijka 1,000 jeer ixtiraam iyo sharaf aad xaggayga ka mudan tihiin anigu taageerayaasheeda ma dhahayo walaalahay baa tihiin dunida meel walba joogtaan baraare iyo bashbash ku noolaada waalidiintaya i daawada dad iga waaweyn waa waalidiintii adeeraday baa i daawada qof kastoo soomaali baa aniga adeer i ah qof walbo hooyo walbo soomaaliyeed baa hooyo i ah waxaan adeegsadaa hooyo waxaan adeegsadaa aabe waxaan adeegsadaa aboowe waxaan adeegsadaa abaayo maxay anigu muqdishaan ka imid aboowe iyo abaaya laga yaqaanaa waxaan adeegsadaa hal ku dhig dhammaystiran mid baa maalintuu life soo galay intaana barnaamijka ka bixin wuxuu yidhi balwaan cabdilaahi balwaan waxaan ka qaadi doonaa jalaab haye waxaan ku anqaabi doonaa intaan muqdisho ku sugo ayaan muqdisho ku qabanaya markaasaan jeebadanaya muqdishoaan ku xiraya muqdisho waa meeshii aan ku soo koraya waa halkii aan ku barbaaray isagu gobol kale uu ka yimid aniguu doonaya gurigii aan anigu ku barbaaray dugsi qur-aanka meeshaan ka dhiganayay halkii uu aabbahay deganaa iyo goobta ay hooyaday deganayd ayuu aniga igugu hanjabaya bal ka waran maxaa yeelay ma yaqaana aqoon kale ma yaqaan in qof loo hanjabo in qof la caayo keliyuu yaqaanaa ma yaqaano qof kale si loola hadlo in dadka la qanciyo ma yaqaano caddayna ma yaqaano aad aad u mahadsantihiin barnaamijkan mid lamida intaynu ku kulmi doono waa balwaan oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo